Haddii aad doonayso inaad noqoto qof dadka kale ka soocan oo mustaqbal fiican leh, waxaa jiro qodobo ay tahay inaad raacdo si aad u noqoto qof dadka kale ka duwan oo mustaqbalkiisana ifayo. Qodobka koowaad wuxuu yahay dhoolla caddeey xilli walba, haddii aad faraxsan tahay iyo haddii aad murugsan tahayba. Qodobka labaad wuxuu yahay iska iloow wixii hore ee aad ka soo gudubtay, sababtoo ah xusuusashada wixii hore dib u dhac ayay kugu keeni kartaa. Si fiican u dadaal si mustaqbalkaaga u noqdo mid qurxoon. Qodobka saddexaad wuxuu yahay ku cibro qaado qaladaadka dadka kale ay sameeyaan, si aad uga dhicin qaladkaas oo aad isaga ilaaliso. Qodobka afraad wuxuu yahay dhegayso waanada dadka kale, sababtoo ah qofka ku waaninayo waxaa laga yaabaa inuu horay u soo maray qodobka uu ka waaninayo, ama uu og yahay dhibka ka imaan karayo. Qodobka shanaad wuxuu yahay ka faa'iidayso fursadaha ku soo mara, maxaa yeelay fursaddu hal mar oo kaliya ayay ku soo martaa. Qodobka lixaad wuxuu yahay dadka kale ha ku daysanin, ee kaliya shakhsiyadaada aamin. Qodobka toddobaad ee ugu dambeeya wuxuu yahay noqo qof daacad ah, lana saaxiib mabaadi'da kuu degsan, naftaadana ku kalsoonow.